بسم الله الرحمن الرحيم. maanta tababarka aan qaadanayno waa tababar ku saabsan productiga ay soo saarto shirkadeena Tiens-Zinc. daawada aan qaadan doono waxa weeyaan zinc haddaan sharaxno zinc waxa weeyaan waa curyo nafaqeeya oo ku jira jidhkeena oo haddii uu jidhkeena uu waayo oo ku dhici karto inuu xanuuno badan uu jidhkeenu uu ku dhaco. zinc waxaan eegi doonaa faa'iidooyinka ay jidhka u leedahay. zinc horta waxa weeyaan waa curyo nafaqeeya oo jidhkeena ku jira. zinc faa'iidada ay leedahay waxa weeyaan qanjirka loo yaqaan prostate glandka ayaabay daweysaa, waxay kor u qaadaa difaaca jidhka, waxay soo kale kor u qaadaa aragtida indhaha, waxay kor u qaadaa ama qofka ay ka ilaalisaa inuu qabowga ama hargabka si yar fudud ugu dhaco qofka. waxay horumarisaa maskaxda shaqadeeda ama si maskaxda u shaqeynayso iyo activity-geeda ayaabay horumarisaa. waxay u fiican tahay caafimaadka maqaarka iyo quruxda maqaarka. waxay soo kale horumarisaa dhadhanka iyo urta. dad badan waxa jira waxna aan urin waxna aan dhadhamin, iyo dad waxna dhadhamiya waxna uriya laakiin ay ka yar tahay baa jirta curyahan uu ka yariyay. saa daraadeed qofka dhadhankiisa iyo urta inuu sankiisa wax ka uriyo ayaabay horumarisaa. appetite-ka qofka kor bay u qaadaa. qofka hadduu appetite-ka kale uu ka xiran yahay. waxay dumarka ka ilaalisaa menstruation problemska ama dhibaatooyinka kaga yimaada xagga caadada oo kale, caado wareerka oo kale. waxay ka ilaalisaa dumarka inuu ilmaho kale uu ka qumo. ilmaha markuu caloosha hooyada ku jiro waxay ka ilaalisaa inuu ilmaha yari uu dhasho isagoo culeyskiisu aad u yar yahay ama isagoo ilmahan yar aanu koritaankiisii dhamaystirmin oo uu gaaban yahay oo kale. tusaale waxay ka hortagtaa waxa loo yaqaano postmenopause problemska, dhibaatooyinka ku yimaada dumarka inuu dhiigu goor hore dumarka ka go-o iyagoo ilaa 30 jir ama ilaa 40 jir meelahaas. waxay soo kale kor u qaadaa samaysanka ilmaha kale ama waxa loo yaqaano fertility-ga, inuu gabadha ilmuhu uu ku samaysmo oo kale caloosheeda. waxaanay aad ugu fiican tahay oo ay la dagaalantaa daawada zinc loo yaqaana kansarka xanuunka la yiraahdo. dosage-ka hadaba loo qaadanayo ama sida loo qaadanayo waxa weeyaan zinc qofkii hadduu uu ka wan yahay 10 jir wuxuu qaadan karaa 4 capsules twice a day. maalinkii wuxuu qaadanayaa 4 capsules subaxiya iyo 4 capsules habeenkii. haddii uu qofku uu 10 jir ka yar yahay uu ilmo yar 10 jir ka yar uu yahayna zinc wuxuu ka qaadan karaa 2 xabo subaxiya iyo 2 xabo habeenkii ayaabuu zinc ayuu ka qaadan karaa. saad arkaysaan 2 jeer buu markaa maalintii uu qaadanayaa. Better Tiens, better life. Thank you.